madaxweyne waxaanu codsanaynaa oo wasiir codsanaynaa in loogu daro si degdega riig ummadda in riig lala soo gaaro riigaasi sababta nusada u leeyahay waxa weeye 24 saacadood markii hore 8 iyo 10 iyo 6 iyo 10 buu shaqayn jiray maanta degmadii iyo maamulkeeda kama dul dhaqaaqana waxaana ay ugu dul dhaqaaqi laayihiin 24 saacadood baa laga dhigay booyadihii iyo geeliyo ka aragtaana iyo xoolihii ka aragtaana ayaa waxa dul yaala culays siyaada ah sidaa darteed mishiin kuma shaqayn karo riigna kuma shaqayn karo 24 saacadood joogiyeen ku soo guurayba dadka ha loo birmado dawladda sidaasaan ku codsanaynaa qurba joogta waxaanu leenahay iyaga oo horeba ugu soo gurmaday oo sida aan ugu damqanayo dadkooda qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda degmada Darooro warbaahinta la hadlay ayaa baaqayla dhaana u diray xukuumadda hogaamiye madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaanay ka codsadeen loo qodo riig degdega iyagoo ka deeriyay riiga qura ay leedahay degmadaasi waxaana sheegay in aanu ku filnayn hariig baahida biyo la'aaneed ee ka jirta xilligan degmada anoo magacaygu yahay Cabdikariim Maxamed Xiiray kuna hadlaya afkii suldaanka guud Suldaan Yuusuf Maxamed Xiiray haddaan warbixin kooban ka bixiyo degmada Daroor waxay leedahay riig duleedkeeda ah oo 14 kiiloomitir meelaha u jira degmada Daroor waxa ku soo guuray 3 degmo ama 4 degmo dadkii deganaa oo waxa saaran culays siyaada ah sidaa daraadeed jiilaal baa lagu jiraa jiilaalka maanta lagu jiro iyo biyo la'aanta lagu jiro waxa kala tan weynaaday ceelka riiga ah ee magaalada Daroor ku yaala iyo ummadii 48 ka qabalay ay ka kooban tahay iyo ummadii degmooyinka kale kaga timi waxa ay dul saarantay maanta oo idin muuqata xoolaha dul jooga iyo booyadaha dul jooga iyo ummadda dul joogta inay kala tan badan yihiin maalmo dhaweyto aan sii fogeyn riigu wuu xumaaday dawladdu iyadoo aad ugu mahadsan way soo gurmatay riiga way kicisay haddana wuu fariistay mishiinka ka xumaaday maanta gelinkii hore la kiciyay haddana waxaanu xukuumadda sharafta leh u soo jeedinaynaa oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo wasiirka biyuuba in aanay ku filnayn oo lagu halayn karin xabada yare riiga ee marna istaagaysa marna kacaysa ummadda baaxadaale ee oonkaasi maanta hayo ee maatida iyo caruurta iyo ehelka ummadda halka iskugu timee ma garanaysaa soo guurtada ah madaxweyne waxaanu codsanaynaa oo wasiir codsanaynaa in loogu daro si degdega riig ummadda in riig lala soo gaaro riigaasi sababta nusada u leeyahay waxa weeye 24 saacadood markii hore 8 iyo 10 iyo 6 iyo 10 buu shaqayn jiray maanta degmadii maamulkeeda kama dul dhaqaaqana waxaana ay ugu dul dhaqaaqi laayihiin 24 saacadood baa laga dhigay booyadihii iyo geeliyo ka aragtaana iyo xoolihii ka aragtaana ayaa waxa dul yaala culays siyaada ah sidaa darteed mishiin kuma shaqayn karo riigna kuma shaqayn karo 24 saacadood waxaan u baahanahay oo codsanaynaa mar labaad codsanaa mar saddexaad codsanana in sanduuqa abaaraha ee dawladdu qabatay in nalooga sameeyo haddaanu nahay degmada Daroor riig degdega madaxweyne waxaanu jecelnahay in codsigeena loo tixgeliyo wixii ay dawladdu qabatay way noo qabatay raashinka wax kamid waa na soo gaaray calafka xoolaha wax kamid waa na soo gaaray riigu markii hore naga fadhiistay waa naloo kiciyay intaaba waan idinku mahad celinaynaa ilaahay ka baryeynaa deeqda ilaahay baa lagu baahi baxaaye in ilaahay dadkiisa u soo naxariisto taanu hadlaynay iyo wixii la mid ah kale ee sidaa u dhibaataysanba in ilaahay u soo naxariisto baan horta ilaahay uga baryeynaa marka xigta dawladda dhibaatadii ka jirtay ceelka degmada Daroor waxba laga qabtay riiga ugu sii daraa way u burmatay dawladdu waxbay ka qabatay kadib haddana waxa ku timi hashkad baa ku timi riigii waqtiga aynu ku jirana waa la garanayaa culayska saaran ee ama gaadiid leh ama xoolalana nin waliba halkiisa ayuu kala socdaa gaariga ninka lacagta imaka waqtigan aynu joogna helaa ee sidaas oo dhaanso ama riigii xumaad uu imanaya ama farsadba heli maayo halka waxaanu leenahay mujtamaca meesha jooga ee dhibaataysan mid ku soo guuray iyo mid horu joogayba iyo riigu way kala tan badan yihiin xitaa haddii uu fayow yahay waxaanu leenahay riiga kale in loo bilaabo oo loo qodo oo wax looga qabto waanu ka codsanaynaa dawladda sharafta leh madaxweynuhu ka kow yahay wasiiradu ka mid yihiin taa waxaanu ka codsanaynaa dawladda iyada oo wixii ay hore u qaban karaysay aanan lahayn waxba may qaban oo ay wax ka qabteen haddana laguma baahi bixin waqtigeenu ku jirana waa la arkaa magaalada Daroor gudaheeda ilaa xagaagii saddexaad roob intuu helay ceelasha umuu biyeyn lagama cabin ceelasha Daroor magaaladana ceel roob saani u biyo dhigo oo biyo mariya ma helin ilaa xagaagii saddexaad sidaa darteed dhibaatadaasi way ku raagtay magaalada gudaheeda agagaarkeedana waa lagu soo guuray culays badan baa saaran
sidaa darteed waxaanu leenahay nin horu joogiye nin ku soo guurayba dadka ha loo birmado dawladda sidaasaanu ka codsanaynaa qurba joogta waxaanu leenahay iyaga oo horeba ugu soo gurmaday oo sidaa aanu ugu damqanaya dadkooda iyo maanta haddii alla kuu roon yahay dalkoodaba iyagoo ugu damqanayo horena ugu soo birmaday imakana meel saraha ka guntadaan waxaan ku celin lahaa oon doonaya in taakiidiyo inay u baahan tahay degmada uu kala batay riiga biyihii uu soo saarayey iyo baahidii dadku ay aad iyo aad u kala badan tahay oo biyaha uu riiga soo saaraya ay ka badan yihiin baahida loo qabo ama dadka populationka deegaanka ay aad iyo aad u badan yihiin haddii booydii tahay meelaha kale loo qaadiyey satarada kale haddii xooli cabayay yihiin ay aad u kala badan yihiin waxaan codsan lahayn markaas oonu baaq dheer aanu ku codsanaynaa in la sameeyo culayska laga yareeyo riigan oo riig kale la sameeyo oo ay dadku ku kala nastaan oo xoolaha iyo mataqaanaa baabuurta iyo waxba ay ku kala nastaan runtii abaartani way soo noqnoqotayna waxaan u baahannahay inaan wax ka baranno waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa dawladda inay wax nooga qabato ceelasha ka samaysan degmada Daroor santar kasto ay ku yaalaan waxna looga qabto oo bacana loo dhigo oo sanad walba roob ayaa daa oo haddana baraagta ay mar la dhamaadaan kolka waxaanu doonaynaa si aad uga codsanaynaa dawladda in wax looga qabto oo la noo dhigo baco adag oo kuwa biyaha qabta ah